kaalamida u dirayaa madaxweynaha qiimaha badan ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee af Soomaaliga heeganka u ah ee dhaqaalaha badan ku bixiyay taariikhdii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan sidii loo qori lahaa mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaan madaxweyne baaq kuugu dirayaa adigana inaanad faraha ka laaban diiwaanka Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ee sawirkaagu ku yaallo ee quruxda badan ee yaallee faafay buuggan laga soo daba saaray ee meelka dhaca iyo lafjabka ku ah taariikhdii sayidka si degdeg mudane madaxweyne inaad uga qayb qaadato majara habowga taariikhda ummadda Soomaaliyeed halyeygeeda loo geysanayo ayaan ka codsanayaa culimo awdiinta iyo waxgaradka iyo inta aqoonta leh iyo inta wada dhalashada midnimada iyo isukeenka ummadda Soomaalida ka shaqaynaysa darisnimada iyo jaarka inta ogol haddaynu reer Soomaaliland nahay walaalaheena reer Itoobiya jaar baynu nahay xiriir ganacsi bay naga dhaxeeya waynu isdhalay ma ogolin sidan oo kale inay buug sidan oo kale u qoraan ka qoraan gaariye hadraawi inay ka qoraan xasan gare inay ka qoraan ma ogolin haddii aynu se tan ogolaano waxay noqon doontaa sunne nin waliba siduu doono uu u qoro taas waa mid waxa aan cadaynayaa buuggani inuu yahay dhinac kaliya qof kasta oo bilaaadmiye wuxuu leeyahay taariikh lagu dhaliilo iyo mid lagu ammaano dhinacii ammaanta ee sayidku lahaa meela lagama xusin gabayada meesha ku qoran waxa la leeyahay sayidka tiriye muu tirin waa gabayo xubinta taranka ee haweenka Soomaaliyeed tilmaamayo qaawan waa gabayo baalmarsan anshaxa suuban ee diinteena islaamka waa gabayo aan lahayn farshaxanimadii iyo foolaadkii ereyadii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waynu garanaynaa sayidku horu uga hadlay wuxuu yidhi allow yaa aflama daaliye iga asluubaysta diintana horu uga hadlo wuxuu yidhi diintayda anigaan ku gadan dabaqii naareede anaan labadan daarood tan hore darajan moodayni aakhira la tegi waa maalin aakhiriye maalin adduunyo tanina ku waari maayo waxaan ku leeyahay haddaad tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta kaa aqbali mayno oo ummaddu kaa aqbali mayso inaad waxaan wasiir warfaafineed noogu ahaatood noo faafiso ood ummadda u faafiso ood ummadda godob u samayso nin baa yidhi inta kayse aan garanaya tanuu kamaandaysay een maanta kow laga ogayn kuman waxbaa dheer tan waad ka tegi maalinaad ka tagtaba xabaal baa ku sugaysaa waxba umaad dhigan qabrigaaga waxba maad u dhigan meeti baad cuntay ood ku jeesjeestay manaad joogin taariikhda manaad soo gaadhin cid soo gaadhayna ma haysid siday adiga kula tahay baad wax u qortay fikirkaagaad qortay laakiin maaha waraysi aad qaadda iyo xaqiiqooyin aad haysa midnaba qodobka kale Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan inuu ahaa nin islaama oo islaamnimo ku dhintay waxa inoo cadaynaysaa 3 jeer ayay gaaladii ishayeen nimankii gaalada ahaa ee dagaalku ka dhaxeeyay 3 jeer bay damceen inay meydkiisa la baxaan 3 jeer bay damceen inay lafihiisa qaataan 3 jeerba waa loo diiday waxa laga qariyay halku ku aasan yahay hadduu sidoodoo kala ahaa maxay ka daba socdeen waa su'aal dadka uga jawaabi doonto taas waa mid qodobka xiga waxa aan doonayaa bulshada inaan tuso buug kale oo uu qoray ninka dadka qaar u yaqaanin guri barwaaqo buuggan waxa la yiraahdaa magac bilaash oo ma baxo buuggan waxa maqaal dheer ku darsaday nin gaala oo dalka Ruushka u dhashay oo la yiraahdo George Kiptis ninkani isagoo ammaanaya ninka buuggan qoray ee maanta wasiirka warfaafinta wuxuu oranayaa guri barwaaqo nin aad taqaanid yaa tahay lama yiraahdo good morning waxa aan la yaabanahay sida quman ee cad ee qoraagu wax inoo fahamsiiyo waxa aan la sii yaabanahay aqoonta uu u leeyahay dalka Soomaaliya dabeecadiisa iyo dhaqankiisa markii aan buuggiisa akhrisanayay ayaan marar badan isweydiiyay su'aal ah odaygu isagu ma wax walba ogaalba mise waa alla ka yare inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mudane madaxweyne ninka aad ummadda wasiirka uga dhigtay waa ninka buuggiisa waxaasi ku qoran yihiin waa ninka waxaasi ku yaalaan bal diinta uu haysto ummadda ha ka dhaadhiciyo ha ka warramo ha la weydiiyo waxaan buuggiisay ku yaaleen
cid kale umay qorin isaga ayaa qoray isaga qoray tafatirihu isagu ahaa shirkadda daabacday waa asal shirkadaha wax daabacaya laftoodu waxa loo keenayay inay hubsadaan baa wanaagsan waa ninka gaalkii ku sheegay alla ka yare ee buugiisa waxaasi ku yaaliin bal haddaba isagu diintu aaminsan yahay dadka ha uga warramo sayid maxamed cabdulla xasan diintiisu islaam bay ahayd ilaahay qabriga ha u nuuro isaga iyo intii islaamay dhimatayba waxa kala cadayn doontaa ninna taariikhda gabayadiisa sheegaya islaamnimadiisa ninkana waxa sheegi doona waxa halkan ugu yaala isagu ma wax walba ogaal baa mise waa alla ka yare ayaa ugu qoran waa ninka dadku u yaqaanin guri barwaaqo anigu ma odhanayo waa guri barwaaqo wuxuu yahay halkan ay ku qoran tahay taariikhdiisu waa tan intaa kadib mudane madaxweyne waxaad u dhaaratay diinta dalka iyo dadkaba inaad difaacdo adigaa lagu weydiin doonaa ninkaad ummadda wasiirka uga dhigtay ee uu alla ka yaro ugu qoray ninka gaalkii ee faafinaya xumaanta ee faafinaya isku dirka ee qabyaaladda iyo naxligu dhaamiyey adaa lagu weydiin xidhihiisu waa adiga adaa in adeerkiya wuxuu halis ku yahay diintuu halis ku yahay ninkani wuxuu halis ku yahay amniga wuxuu halis ku yahay wada noolaanshaha wuxuu halis ku yahay dhaqanka suuban ee birmageydada ah ninka may dayn waayey mudane madaxweyne ee meetidii xabaalaha ka soo faqay baa tiri wasiir noqo maalintii koowaadba waan garanayay ee aad u magacawday inaannu daynaynin ragga qiimaha leh ee ku suntan warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaynu ognahay wuxuu sameeyey oo tusaale ugu filan bulshada 25 wariye oo mar keliyaata si badheedha oo kibira inta loo eriyo albaabada looga xidho oo inta xilalkii looga qaada haddana cunaha loo qabto oo mushaharkii looga gooyo waa waxaan weligeedba dhicin dhurwaala ma dhicin wuxuu sameeyey anigu se waan aqaanay isaga waxaa dhacday oon ummadda u sheegayaa anigoo macallinka ah jaamacadda hargeysa oo macallin ka noqday allah u naxariistay gaariya markuu dhintay 2012 baan macallin ka noqday muddadii u dhaxaysay 2012 ilaa 2015 baan dhigayay aniga oo jaamacadda macallinka ah ayuu sifa qaldan oo qaraabakiilnimo ku soo galay jaamacadda xiisadihii anigu aan dhigayay ayuu qayb ka mid ah si qaraabakiilnimo iyo qabyaaladii ku jirta u qaatay oo loogu qoray oo nin xilligaa jaamacadda haystay oo isku xaafada hayeen oo qurbaa ka keenay ugu qoray kamaan xumaana waan u daayay intii soo hadhay baan dhigay muddo yar kadib ayaa wuxuu soo saaray af Soomaaliga nin digrii sita mooyee nin kala dhigi maayo anoo uga soo horreeyay baa laga dhigay gudoomiye kulliyada aan jirin ayaa sifa qaldan magaceedii warqadu ugu soo qortay allah u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariye oo ahaa abwaan qaran ayuu si qaldan ugu dawarsaday magacii gaariye isagoo oo sifa qaldan oo qabyaaladeed oo waliba jilibnimo u adeegsanaya wuxuu soo qortay kulliyada afafka ee gaariye inuu ka yahay gudoomiye kulliyada afafka oo gaariye oo jirta oo hore u jirtay imikana jirta ma jirto af Soomaali lagu barto laga baxaa laakiin af Soomaaligu waa maado ku jirta sayniska waa maado ku jirta lawga waa maado ku jirta kulliyadaha oo dhan waa maado la mid ah maadada af Carabiga maadada Ingiriisiga laakiin kulliyad ma leh sifaha qaldan ee reeraysan ee jilibaysan ee hoos ugu daadagay ayuu magacii gaariye ku soo qaatay dabadeedna wuxuu yidhi ninka af Soomaaliga dhigaya waa inuu digri haystaa bal hal la weydiiyay isagu ma af Soomaali buu haystaa digriga waa maya nin digri u haystaa af Soomaali ma jiro macallimiinta af Soomaaliga dhigtaa way baadhaan way soo ururiyaan waxa looga baahan yahay gudbin dhaqan wanaag iyo inay aqoon u leeyihiin ardayga waxay u dhigayaan laakiin jaamacad looga soo baxaa af Soomaaliga dibaddu ka yimi qurbuu ka yimid ama qurbaa looga soo qalin jabiyay af Soomaaliga isagaa la weydiin taasi waa qodob mudane madaxweyne waxaan kuu sheegayaa inaanad helin halyeygii u qalmaayay wasaaradda warfaafinta waxaan mar labaad kaa codsanayaa arrinta inaad hoos u eegto bugaagtana inaad guddi u saarto oo inta aan sheegayba markhaatigeedan hayaa waa kuwan bugaagtii in laga wada tashado hoos loo eego bugaagtana in laga joojiyo dadka iyo dalka labadaba marka ay sidaa tahay waxaa kaloo aan ku soo gabagabaynayaa inaan ahaa agaasimihii waaxda dhaqanka ee wasaaraddii hore ee dhaqanka iyo dalxiiska waatan wareegtadii uu igu magacaabay wasiirkii hore ee wasaaraddii dhaqanka iyo dalxiiska mudane
khadar xaaji yuusuf oo maanta waxay aho jooga waxaan ahaa agaasimaha waaxda dhaqanka markii aan ogaaday in guri barwaaqo loo magacaabay wasaaraddii warfaafinta waan garanayay inay tani dhacayso waxaana go'aansaday ninka meetidu ka badbaadi weyday inaanan risiq u doonan inaanan shaqo u doonan ayaan go'aansaday warqaddaydina waa taa isaga ayaan u daayay meel ha u buuxiso taasi waa mid haddaba waxaan ku soo gaabinayaa sayid maxamed cabdille xasan ma nin qabiilkiisu difaacay uunbuu ahaa oo qabiilkiisoo keliya ammaani jiray mise nin soomaaliyeed oo dhammi ammaani jirtay oo taarikhdiisa ay hayso waxaan caddaynayaa abwaanada ugu waaweyn reer somalilan inay gabaya ku cabbireen kaalintii sayid maxamed cabdille xasan uu dadka iyo dalkaba ugu jiray waagii hore qofku dee dhaliilo iyo qalqallooc wuu yeelan karaa goldoloolooyin nin weliba waa leeyihi nin ka marin ma jire dadku waa aadami laakiin qofku sama iyo xumo marka taariikhdiisa laga sheekaynayo xumaantiisa iyo samaantiisa labadaba waa la sheegaa bugaagtaa hore xumaan mooyaane samaan sayid maxamed cabdille xasan leeyahy kuma qorna haddaba ummadda waxaanu sheegayaa abwaanka caankaa ee cabdi aadan xaad qays gabay uu ka tiriyey sayid maxamed cabdille xasan waxa uu yidhi sayidkii aroor buu ku dhacay saawasaawuhuye subax buu ka geediyey taleex sadarradeediiye halgankiisu waa suubanaa seegna waa jireeye kol hadduu safkii aakhiro iyo saaka yahay meeti saluuggiisa waxaa iiga roon saamax nabadeed ninka islaamka ahi ee ilaahay garanaya waa kaa qofku markuu dhinto saamaxa wuxuu doona ha sameeyo haddii taariikhda sayidka aynu qaybtii dhaliisha yar eegno ama aynu idhaa dhaliil muxuu yeelan karaa qof kastoo islaamiba dhaliilla wuu leeyahy marka laga hadlayo qaybihii xaggii geelqaadka reerkii u horreeyey ee ay daraawiishtu geel ka qaaddo ah waxa uu ahaa qoyska anugu aan ka soo jeedo colaadna uma hayno cuqdadna uma hayno waa naga saamaxoo wuu dhintay isaga laftiisuna masafuu ku cabbirayoo wuxuu yidhi dayax weerar jeer hore rag baa igu duquuloo ciidagala ma daaro andaqaabi maayo diiriyaanu xididnoo duubigay calaamayn buu yidhi wuxuu sheegay talada inay rag lahaayeen ku qasbayeen waxaanay ku jirtaa diiwaanka sayidkay ku jirtaa taariikh waliba waxay leedahay markhaati haddii haddaba ninkani uu ka hadhay raggii hore ee qabyaaladdu buuxisay ee geela qaadayey hadduu ka habsaamay kuwii hablaha caayayey hadduu ka habsaamay kuwii xaaraanta iyo xalaasha aanay u kala socnayn hadduu ka habsaamay kuwii qofka risiqiisa cunayey hadduu ka habsaamay dee bulshada ha loo sheega ee yaan looga dhigin wasiir ummadda ha loo sheego hadduu raggaa hore ka habsaamay ha iscaddeeyo waxba ciirayuu isku qarin waxa aan ku darsanayaa gabay kale oo uu axmed ismaaciil diriye qaasim sayidka kaga hadlay wuxuu yidhi allow yaa darwiishkii farriin dabacsan gaadhsiiya allow yaa dabaaldeg iyo farax kula dulgeeraara allow yaa dalluuntiiyo qabriga dib uga soo saara dhaaxuu u daakiray xaqoo naga dahsoonaaye in dariiqadii nooshaho dihina soo gaadhay oo uu dabkuu shiday rag kale dogobya sii saaray allow yaa aflama daaliya daacad ugu sheegay buudhi waa qaasim waa reer somalilan muxuu u sheegi waaye waxaanuu ninkani qoruu sheegayo kaasina waa mid waxaa kaloo isaguna hees ku cabbiray abwaanka caankaa ee maxamed ibraahim warsame hadraawi kaalintii sayidku ku jiray uu sheego wuxuu yidhi axmed guray ma uu dhiman ma goblomin darwiishkii geeyadu ma daalana darwiishku waa sayidkii weeye waxaa kaloo isna ku halqabsaday oo kaalintii halganka iyo waddaniyadda ahayd ee sayidku uu soo maray iyo wanaaggiisii sheegay allah u naxariistay cabdiidaan faarax waxaan ku soo gebagabaynayaa wakhtiga oo aan ii saamaxayn aawadeed maalin kale iyo madasheeda inaan ku soo bandhigi doono ninka la yidhaahdo guri barwaaqo duntiisa hoose habdhaqankiisa qabyaaladda ku jirta iyo waxyaabo badan oo uu dadkula kacay inaan soo bandhigi doono onan qarin doonin haddii wax laga qaban waayo maantase waxaan hadalkayga badh u daynayaa
go'aanka uu ka qaato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo go'aanka ay ka qaataan labada madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti go'aanka ay ka qaataan taariikhda iyo milgaha ummadda Soomaalida in la baabiyo ina raalli ku tihiin iyo ina wax ka qabataan waan idin sugaynaa maalin kale iyo madasheeda iyo markhaatigeeda la isla iman doonaa intaas kaga baxaya